iyadoo caalamka ay ka dhacaan dhacdooyin aad ula yaabto ayaa waxa isbuucaani laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Uganda waxa ay ku dhex dagaalameen xarunta baarlamaanka dhexdeeda kadib markii mid ka mid ah xildhibaanada lagu eedeeyay in uu waday olole ugu baaqayo shacabka doortay xildhibaankaas in ay ka soo horjeestaan sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi Uganda. Anthony Akol oo laga soo doorto deegaanka Kilag North County ayaa sheegay inuu dharbaaxay xildhibaanka kale oo lagu magacaabo Odongo Otto isla markaana uu sameeyay tallaabo uu iskaga difaacayo sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mirror. Akol iyo xildhibaanka kale ayaa dagaalamay xilli ay joogeen dhismaha baarlamaanka kadib markii uu weydiiyay sababta uu u wado olole ka dhan ah xilkiisa. Xildhibaanka la dharbaaxay ayaa qiray in Akol uu waday olole xilka looga qaadayo isla markaana uu ku eedeeyay in uu iibsaday dhulka dadweynaha sida uu ku waramay wargeyska Daily Mirror. Haddaba arrintan ayaa waxa ay ku noqotay mid la yaab ah dadka reer Uganda ee arrintani